بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، برشيرين هيرلي سي waxaa ku qoran inaan ka waramo jiilkii fariidka ahaa jiil saxaaba ama faci saxaabadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wa ridwaanullaahi calayhim waa dad ilaahay doortay oo ummadda muslimiinta ee dambe ka tilmaaman markhaatina ilaahay u furay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa oo ku tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas. ilaahay isagoo iyaga la hadlay wuxuu ku tilmaamaya inay yihiin kuwii ugu khayr badnaa ee ummadda loo soo saaray. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam isna wuxuu leeyahay khayrukum qarni aw khayru nnaasi qarni, riwaayaadka xadiidkan filaya. waxaa dadka u khayr badan qarnigayga, ama waxaa idinku khayr badan qarnigayga. saxaabadu dee 10 daqiiqo iyo 20 daqiiqo iyo maalintoona kuma fila in laga warramo, laakiin dhowr eray oo kooban baan idin tilmaamaya. ugu horreyn, waa jiil dhammaantood qaada ahaa. ninka sheekha ama caalimka ahi markuu dhinto arday buu ka dhintaa, waa laga yaabaa mid ama laba booskiisii kusoo dhadhawaada in la helo ardadiisa ka mid ah, laakiin inta ugu badan le waa arday uun. laakiin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay jiil dhammaantii qaada ah, jiil dhammaantii ama fac dhammaantii hormuuda, hogaamiyayaal wada ah, jiil ku sifooba dhammaantood sifooyin aada u xoog badan oo ah caqiido qumman, akhlaaq dhammaystiran, ammaano, sifaa ilquluub, qalbi saafiya, caziimo iyo go-aan adag leh, jihaadka ilaahay dartii u jihaatamayaan jecel. waa laga yaabaa dadkii ka dambeeyey qof ama laba ama saddex ama afraad kobocda oo dadkay la noolyihiin ka kor noqda in laga helo, laakiin culammadu waxay dhahdaan ma fududa in la helo jiil dhan, fac dhan, ummada dhan ama da' dhan oo miisaanka ay kuwaasi lahaayeen leh. waxay dhahdaan suurtagal maaha in dib loo helo liasbaab mawduuciya. maaha un ammaanaan ammaanayno oo leenahay iyaga oo kale la heli maayo, laakiin dad leg in la helo sababo mawduuciya ama sababo rasmiya daraaddood la heli maayo. oo ay ugu horraysa baynu leenahay waxa iyaga rabeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa gafkooda toostoosiyey rabu samaawaati walard. ugu horreyn waxaynu leenahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa rabeeyey, murabbi la midina ma jiro. kullamaa qudwadaadu ama cidda aad ku dayanayso ama cidda ku wada ay tahay cid dhammaystiran ama kamaalil akhlaaq wadata, waad ka gedisan tahay ninka dee wadaad darra ku faya marna kacaya uu rabbaynayo uu ka gedisan yahay. waxa kale uu kaga gedisan yahay marka ay tahay khata'aaga iyo gafkaaga cidda kuu sheegaysa rabu samaawaati walard. iyaga marka ma wax ka dhacaan ama wax ka qaldamaan, qur-aan baa soo degaya laleeyahay saasi sax maaha, sidaa yeela, minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira. waa duul ilaahay qur-aankiisa ugu marag furay. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إلهي سبحانه وتعالى ودول مرخاتك وفريه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة وكن يا أفر بغلا ما كن يشام بغلان بمرقر إلهي مرخاتك وفريه إنه إلهي رالي كي وكقد سيهين. marka rabbi subxaanahu wa tacaala uu tilmaamaya laqad taaba allahu cala alnabiyi walmuhaajiriin walansaari aladiina itabacuuh fi saacati alcusr
صدن كنون أيها في غزوة تبوك آيات كانوا كسود دقيان إن إلهي سبحانه وتعالى وتلمامو لذلك توبة أقبله من بعد ما كاد يزغ قلوب فريق منهم إذن وجيل إلهي ومرخاته فري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ومرخاته فري وجيل بين وركرنا ربي دورتي أو دورين النبي ستاغير يالو النغضان وجيل بين لنا تراكم الخبرات على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بداية إلى نهاية للرب يلكري إنك أفكر النبي محمد كري وضع عليه الصلاة والسلام فإنك كمدو فرحة نبي جبان حلا كيبو كذي وآد بو فرح سيد وهي نبي كوب شارع عدة يقول رياضة هنا الشيطان يسكم التالي كأنما وسجاقي حد ما الإنسان كسوح والباركي هذا هداد هبان رياضة وفرحات كلا بدنسة لكن كان النبي محمد الله صلى الله عليه الصلاة والسلام يوهر فرديي وحش يجي وكجد سيد وليس كمن سمع ليس من رأى كمن سمع النبي عليه الصلاة والسلام وكما كيوكور رمي نبي الله موسى السديسي نبي موسى إلهي باوش هاجي تلكين لا يتحامي سجى قداشي لفتنيي دبتنا سوى على يسمو صار نوضي لكن واحد داعي مركو عندها ساري لوحي باب البركة كله في توسيتي لما ترى النبي عليه الصلاة والسلام سوى تعليقنا يوحو كنت المامي ليس الخبر كالمعايا وكل من مدها واحد الناس صار وحي ورقو وشاقي يوحي هذا يسكو مدما إنك وربين سوى قاري نبي بصدا يلي عليه الصلاة والسلام وحاسب مركي دعم بآيات كاسود وربين سوى قاري لكن حادثة مركي هذا دوغو تاقنتهاي مركي هذا دوغو سبب النزول في القرآن كسود دقيتهاي سداد دريميسا فبدي إلهي سبحانه وتعالى ولا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مركي القرآن أخرى نسيت فريس أي دريميسا يدو إلهي يدا أهل الكيدي كورما يقرآن كي كسود دقيمي أخريسا إذن لما مدها قفك أنتو أخري يلي قبدا هبلاي اللوريتو رصاصا قرآن كاس كسود دقيمي لما من نغنيسو سيدا أوغيري جيل كني وحاها جيل قرآن كددن وليه وهي يقول نلشودو كورميا إنك هو التاريخ أبو جهل بأساس ما يقرأ كأساس سودة أبو بكر باعي كي يلو قرأ كأساس سودة وحصان معي قرأ كأساس سودة انتهى الدريم يسايا مركز هذا هو الصعدة إلى أنتو حضوا كل هذا ورصدر هذا وضمها هذا هو واحد طبعا يا أنت إلى هي قرآن سودة شيء لا يقول هذا وصحنت هالك كسي وضوي هذا صحابة النوع عصيها نوع دعوين كمال الله هي وإسمين إلهي وهو الرمي سبحانه وتعالى بل النوع قلوب تود الله صحيه إنك ضدك وحي أنت بدن تشكرين يا رما حكومة يا ظاهرتك موضة وهذا لما هو شيخ بلا ونفي عن بعض قلبي يسوي حكو ترى إلهي سجى سلوك لكن كورك هو إلهي قلوب تود كور رمي من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم إلى إليه أما إلهي سبحانه وتعالى وكنت الماميو لقد إن الله امتحامي قلبي دولة ودبتنا أهل التقوى يسيدا سيكون نغضين اسكمد ما همركا أيها الأحبة جيلك كريمك وجيل النبي محمد ربي وجيل هرتو ده معجزات قدعي هذه النبي محمد عليه الصلاة والسلام معجزات كيساب سوغاري بيو بدي النبي جاد تمرد با وكادن عن غاقو حنين اوي وحاصاد عصدا قاسو كور ربي النبي عليه الصلاة والسلام آلاف من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي في كتب دلائل النبوة هي وحي لمد هي كتب الصيرة هي قواني كور رمية هذا مركا هو خبر لكن نبي محمد وكهر شوقا عليه الصلاة والسلام مركا دركت ضيح الله والله قد قي وكاقد سنتين لقوا لها برقي نبي قد ضيح دلاعي وكاقد سنتين هذا بينها قفواك ييرو كلا دلاعي وكاقد سنتين مركو النبي عليه الصلاة والسلام حبط قرور حياته قاضو أما دور بدو قرور حصعبك وقوساره وأداركت سوى تصبيح سنية قرور حصعبك وهيسو تصبيح سنية يانا المغشو عمر قعدت الله صار أبو بكر مركزو تصبيح سنة مركزو عثمان الله صار مركزو تسوي كاقد سنتين مركز هرتا قنتها هي تصبيح ده مغليسي وكاقد سنتين مركز
idinkoo safaraha raadaan oo naftu idin hayso gacanta nabi maxamed intuu idin geliya ka wada weysaysataan ama ka cabtaan iyo marka war lagugu sheegay lagu yiraahdo saasaa dhacday idan jiilkani waa jiil nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la noolaa oo arkaya mucjizaadka ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala dadkaasi iimaankoodu iyo say diinta kalsooni ugu qabaan iyo say nabiga u raacsiisayin calayhi salaatu wasalaam iyo waxay dareemayaan wuu ka gadisan yahay ninka war ku maqlay jiilkani way ka gadisan yihiin saawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa kuwiina dambe haddaa jabal uxud oo dahaba bixisaan mudda axadihima u nasiifa gaadhi maysaan mid iyaga ka mid laba sacaba uu bixiyey ama intaa nuskeed oo bixiyey waayo waqti diinta u baahnayd buu waxa ka bixiyey labadooda sacab ayay diintan ilaahay ku sugay oo aynu maanta ku haysanaa oo inagu soo gaadhay adiga se milyankaad bixisaa waxoogaa foqoraaw baad wax cunsiisaa laga yaabaa ama saatan uma badna isku mid maaha markaa iyaga saa awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamaya buur uxud oo dahaba haddaad bixiso nimankaasi mudkay bixinayeen ma leeka waayo waa nimankii nabi maxamed u nusraynayey calayhi salaatu wasalaam ee diintan u nusraynayey waynaga gadisan yihiin oo innaga mas'ala markay timaado waxa lagu odhanayaa khilaafka ku jiro madaahibtaasaan tidhi iyo kabacaynka tidhi iyaga khilaafkooda qur-aan markaas soo degaan rafcinayay ama nabi maxamed baa rafcinayay ijtihaadkooda ama waa loo sugayay ama waxa la odhanayay waa gafteen waddadu mid quray markaa ahayd waxaan leenahay way inaga gadisan yihiin waayo masdaru talaqigeenna kala gadisan meeshaynu macluumaadka ka qaadanaynay iyaga aqnaahum kitaabullah ilaahay kitaabkiisa ku filaaday waayo isagoo soconaya la leeyahay ilaahay baa kula hadlayo saa iyo saa ku yiri khalaas uu ka wacanayay inaguna khubarada adduunku maxay tiri iyo waa kan iyo waxaad arkaysaa waa lagu imanay waxa lagu odhanaya sheekh wacdigaaga aad buu fiicnaa adigu dunidaad la socotaa iyo waxaad sheegaysaa sayniska iyo gaaladii waxay sheegtay iyo yani dadka gaalada waxay sheegtaa qalbigooda ku weyn haddaan se qur-aan kula akhriyo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waa uunda qur-aan buu wadaad ku sheegay laakiin ninka waxoogaa saynisa sheega iyo gaaladu waxay tiri waxa la odhanayaa waa khabiir waayo waxa kala gedisan masdaru talaqigeena iyaga waxa ku filayd in la yidhaahdo ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala adigana waa lagu dhoodhoobayaa sidaad ilaahay u rumayso idan waa wax aad u kala fog dad uu ku filaa ilaahay kitaabkiisa warku sheego oo aan u baahnayn masaadir kale in wax looga naqliyo bal uu nabigu diidanaa calayhi salaatu wasalaam cumar buu arkay nabigu iyo waraaq yar akhrinayo tawraad iyo meelaha ka mid ah kasoo cadhoodo markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay low kaana muusa xayan bayna adhurikum hadduu nabi muuse noolaan lahaayo idinka dhexdiinna joogi lahaa maa xalla lahu ilaa an yatabicani umay bannaanateen inuu aniga raaco mooyaane wax kale isagoo nebi ahaa hadduu iminka joogi lahaa buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam uma bannaanaateen aniga mooyaane inuu cid kale raaco idan dadkan markii la rabbaynayey waxa loo xadiday cidday wax ka qaadanayaan ilaahay bay isu dhiibeen subxaanahu wa tacaala waxay isweydiinayeen inuu nebigii baa yidhi cidi kama hadlaynin innaga maxaa looga jeeda baynu isweydiinaynaa iyo warar badan oo kale idan masdaru talaqigooda wuu inaga gadisnaa waxay inaga gadisnaa manhaju talaqigooda qaabkay waxu kale ula kulmayeen innaga waxaynu la kulnaa min baabi almacrifa aw min baabi thaqaafa waxaynu la kulnaa information war badan inaad qaadato in la yidhahdo ninkan hebel waa khabiiro waa cilmi badan iyo aqoon badan wax badan kutub badan buu akhriyey waxaa laga yaabaa rag maanta jooga inay waxay akhriyeen ka badan tahay saxaabadu waxay akhriday laakiin ma gaadhaan haddana maxaa kala gedisan iyagu waxay u arkayeen inuu yahay marka wax loo sheego inay fuliyaan askariga xerada jooga marka subaxii digtoona uu la yidhaahdo ninka maamulka haya ama korneylka meesha taagan awaamir buu siiyaa waxaa yeela kaa sameeya warka la siinaya ma aha information loo sheegayo waa jadwal ilyawmi waa wuxuu maanta qaban lahaa iyaga agtooda waxay ahayd qur-aankan soo degay iyo axaadiiska nebigu waxay samayn lahaayeen si awgeed bay waxay tilmaamayeen saxaabadu inaynu qur-aanka iskuma badin jirin
toban aayadood intuu qof barto inuu xifdiyi jiray oo ku camal fali jiray oo markuu hirgeliyo kadib waayo waa camal yawmigiisii waa maanta wuxuu qaban lahaa ka waxa kala gedisan ninka diinta uu akhrisanaya ula kulmaya maanta wuxuu qaban lahaa iyo ninka raba waxbarasho ama inuu shahaado ku qaato ama in la yiraahdo waa sheekh ama in macluumaadkiisu tiro bataan ama taariikhdii hore inuu wax ka ogaado ninkay min ajli al-ma'rifatay information ninkay tay iyo qofkay transformation ku samaynayso qofka raba inuu isbedelo iyo qofka warka qaadanaya waa kala nooc wajiil ilaahay markuu quraanka sifeynaya uu ku tilmaamay muhammadun rasuulullah walladina ma'a ashiddaa'un 'ala al-kuffar rahamaa'un baynahum taraahum ruk'an sujadan yabtaghuna ilaahay wuxuu ku sifeynaya محمد صفة وحوق فلان إنه إلهي رسول كيسي هو الله سعدانا با إلهي والرجالنا إسكربا نحدو دانا يسون حريستا إنك ملا عكسي قابا صحة وملاينيس قالنا ود بعسن إلا هو مرايكا كي إلا هو أنا بكي دوني لك تلين أيه مسلم دانا سحو كابو فعلا الريري بدا إسكالعي لكن يهو حليلي قال الله إسكالعي walaalkoodna way u naxariistaan waa khalqiga sida ay ula tacaamulayaan khalqigu labadaas uu ah cid ilaahay raacday way sida ula tacaamulaan iyo cid ilaahay diiday oo sida ula tacaamulaan muaamalada ilaahay la lahaayeenna wa taraahum ruk'an sujada hadarkaysa iyagoo sujuud iyo rukuuc ku jira iyagoo ilaahay fadligiisa iyo dheeraadkiisa gaadhay raadcaynaya iyo hal xibba saxaabada rag kamid ah waxa oran jiray xadiista waxaan u jecelahay oo ugu farax badnay markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ninku weydiiyay ee uu yiri innaka ma'a man ahbabt inagu booskoodii gaadhi maynay malaa inaynu jeclaano in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina gaarsiiyo waxaan ku soo koobaya jiilka haddaynu sharaxno ka warrama waa jiil miisaan tiro badan leh وجيل في تاريخ المسلمين نقول دونا قمة الغضة يلي جماعة ضغط دبصة عندنا وربين وقضة يضا لكن مدنا وكسونا ودين تكون رقم كيدو كما حدنا إياغا قرى النبي عليه الصلاة والسلام هذه إياغا النبي وهذا الدين دين تأيلو ما يسو إلهي سيدي تقي هارو قلب الرسول النبي دم الله صادرها لكن وحالي لعيد دم الله يدين صادر ما يو إن دين تلغضة ما وحا كفلا إلى كتاب كيسي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن وحين لأنه وحين لهالي كريم جماعة انت إلى كايان لاغو هدنا هيركا ودكاسيسا جماعة أو ودقادة أمة أنكلا دعين أي أدقين لصاحبه لكن أمة مسلمة وعلى الأقل مستويات كدين تواكل سرياني دي مستويات شوغة وهي لمن كاسي الدين توطرية عصب هذا ما لنا سادين لو يرانا أنت من الصاغ له أو تبتنا وسأل ونبي الشيخ قلا فرديه ويديو لو يرانا كنسي سعد ملك جبريل بابو هاي دين تدين بلاي لأنه كي جبريل كي هذا مسكبيت بنوام إسحاق لما كي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا هذا مسكبيت بنوام إسحاق وهي يقول دين دبعة أو واقع كتير تبي أركيين ولا نقبيه لكن إنه واحد نسكدينا إنه يجا خد ضيانه inaynu islaamkeena dabaqno inaynu fahamno wixii iyaga soo saaray inuu dhexdeena yaalo kitaabka iyo sunnadaasi haddaynu sida yihiin u fulinana konton sanadood in ku ka yar bay dunida kaga taliyeen intii la yaqaanay way ku noqdeen qaadadii ummadda cizo iyo sharaf adduun iyo janno iyo nicmo aakhiraba inaynu wadadoodii raacnaba inoogu sugan tahay oo ku filan صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين